السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن كوضا شقين سؤاشا أو نوغا تمد أرضي كميدا أرضي دا قاتا مادة financial accounting وحي علاقة لليدا هاي جبتركا توبان إيا صدحات وحا مهم ماركا ugu horeyso in aan su'aasha isha isla marino maxaana la weydiinaya waxaa la yiri what was the company's profit before income tax for the year profitka shirkadda ka hor canshuuraha profitka shirkadda ayaana la weydiinaya ka hor shirkadda inta aynan canshuurta bixinin سؤاشن سؤال adag ma aha waa su'aal fudud laakiin goormay fududahay waa hadii lagu siiyo warbixintii profit or loss ka hadii lagu siiyo weeye qaybihii kamidka ahaa hadii la isiiyo dhammaan dakhliga shirkadda soo xaraysay iyo dhammaan kharashaadkii shirkadda ay soo xaraysay marka aan kala jaro ayaa waxa ii soo baxaya profitka idan kharashaadka hadii aan ka reebo kharashaadka calaaqada leh canshuurta waxa ii soo baxayo jawaabta su'aasha la iga rabo laakiin maxaa la siiyay aan isla fiirina maxaana la siiyay waxaana la siiyay qaybtii profit or loss kana lama siinine qaybtii financial position ki asset ki shirkadda equity ki shirkadda liability ki shirkadda beginning ki iyo ending ki waa lagu adkeeyay بمعنى waxaa laga rabaa sifa aad jawaabtan u soo saarto waxaad ku qasban tahay in aad wareeg dheer soo marto laguma fudaydinin waxa lagu weydiinayaa profit waxaana la weydiinayaa profit waxaana la siinayaa qaybaha calaaqada la leh statement of financial position oo waxaana la siiyay qaybtan oo dhan waxay calaaqa la leedahay assetkii iyo liability-ga iyo equity-ga shirkadda weeye haddaba su'aasha waxa weeyaan cashirada maxaan ku soo qaadanay waxaan niri profitka shirkadda daa'iman waxa uu ku shumaa ugu dambeyn uu ka soo muuqdaa qaybtii retain earning iyo reserves waa isku mid bimacnaa waxa ay ka dhigan tahay waxa weeyaan qaybta la rabo in aad soo saarto waa qaybtan maqan macluumaad dheeraadna waana la siiyey waxaana la yiri during the year sanadka gudihiisa shirkadda maxay soo saartay shirkadda waxay soo saartay 25,000 oo shares ah oo midkiiba ay ku iibisay 1.2 haye shirkadda waxay kaloo bixisay cash payment shirkadda waxay bixisay 20,000 ayay bixisay oo dollar maxay ku bixisay dividend ahaan ayay ku bixisay haye 22,000 canshuur ahaan ayay ku bixisay haddaba waxaa la rabaa wareeg dheer ayaad soo maraysaa sifo aad u soo saarto profit before income okay tallaabada ugu horeysa waxa weeyaan in aan soo saarno qaybtani oo ah reserveska retain earningka oo ah salada profitka sanadka lagu shubayo so waa inaan ogaano waa maxay profitka closing balance-ga qaybta reserveska marka hore soo saarayna maxaan soo saarayna closingka qaybta reserveska sifa aan closingkan u soo saarno maxaan sameeynayaa okay aan isla bilowno طبعا aniga excel kan isticmaalaya adiga excel ha isticmaalin qalin iyo warqad iyo calculator isticmaal okay idan waxaan rabaa inaan soo saaro total assets okay iyo total equity iyo liability okay total asset ka waa meeqa total asset kadib aan ugu laabano maxaa asset waxaa asset qaybtan ayaa asset okay qaybtana asset طبعا waxaan soo saari rabaa closing ka ayaan soo saari rabaa opening ka ma rabo لانه already waa meesha maqan waa qaybta closing ka ayaa maqan okay is that clear total asset ka isoo saar idan 150,000 oo lagu daray 110,000 okay enter ide maxaan soo saaray total asset ayaan soo saaray total equity and liability maxaan ku soo saaraya qaybtan oo dhan waxay calaaqa la leedahay equity iyo liability oo payables waa liability for taxation magaceeda fiiri equity qaybtan equity-ga calaaqa la leedahay share premium calaaqa waxay la leedahay equity-ga cashiradan ku soo qaadanay reserves waxay calaaqa la leedahay equity-ga dividend payable equity-ga ayaa calaaqa la leedahay waan isku geynaya li'anna mucaadalada maxay ahayd total asset waa inay la mid noqoto total equity iyo liability aan isku dardarno marka
maxaan ka bilaabayaa waxaan ka bilaabayaa 40,000 oo lagu daray 18,000 closinka un baan ka guurayaa hadda oo lagu daray 125,000 oo lagu daray 10,000 oo lagu daray qaybta reserviska ma aqaana hadda dib iigu dhig oo lagu daray ka bood maadaama question mark ay tahay oo lagu daray 20,000 markaan isku dara maxay soo baxay waxa ii soo baxday 213 hadda waxay ka dhigan tahay total equity iyo liability qaacidadii noo dejisneed equity-ga aan isla soo qaadanay equationkii accounting equationkii qaybta asset-ka waa inay la mid ahaataa equity-ga iyo liability-ga la isku daray idan farqiga u dhaxeeyo waxa uu noqonayaa reserveska ka maqan 47,000 marka waxa weeyaan qaybtani natiijada ay ahayd inay ka soo muuqato reserveska oo ah closingkii weeye 31 December inta meela haysaa okay arday wuxuu leeyahay okay macallin natiijada aad soo saartay optionadana la siiyey kuma jiraan waxa lagu weydiiyey adiga muunan ahayn closing muxuu noqonayaa kan closing reserves okay closing reserves waxa lagu weydiiyey closing reserves ma aha waxa lagu weydiiyey waa qaybta profit-ka ayaa lagu weydiiyey maxaa lagu weydiiyey profit-ka ayaa lagu weydiiyey idan sifa profit-ka aan u soo saarno closing-ka opening-kiisa iyo closing-ka waa inaan naqaanaa inta ilaa hadda ma ila fahantay idan hadda su'aashana la weydiiyey reserves ma aheene profit-aan la weydiiyey profit-oo maxaa lagu soo saaraa profit-ka qaabkee lagu soo saaraa profit-ka waxaa lagu soo saaraa closing reserves oo lagu daray okay oo laga jaray aan dhaho closing reserves oo laga jaray opening reserves oo lagu daray dividend haddaba marka aan hadda fiirino macluumaadka aan hayno ayaan isla taxliilinaynaa okay closingkii ma soo saaray closingkii waa ii soo saarantay closingkii waa soo saaray okay openingkiina already markii hore baan haysto su'aasha lagu siiyey openingkiina waan hayaa dividendtiga hadda ayaa la rabaa inaan ka shaqeyno idan dividendtigii markii hore closingka ayaa maqnaa waan soo saarnay haddana sifa profit-ka aan u soo saarno dividendtiga maqan oo la rabaa in la soo saaro maxaa maqan dividendtiga maqan oo la rabaa in la soo saaro dividendtiyo maxaa lagu soo saaraa okay dividend marka aan rabna inaan soo saarno dividend for the year marka aad rabta inaad soo saarto tabcan mucaadalooyinkan mafruud inaad taqaano waxaan leenahay dividend paid oo lagu daray closing dividend oo laga jaray opening dividend okay dividend paid ma haysaa macluumaadkan isla fiirino marka aan fiirino muctayaadkana la siiyey dividendtiga ee shirkadda bixisay waa meeqa waa 20,000 idan waan haynaa closingka waa maxay dividendtigii waa kana closingka waa 20,000 openingkana waa 15,000 dividendtiga laga hadlayana waa kana idan waan wada hayaa mucaadala ahaan marka haddii aan dabaqno maxaan leenahay dividend paid-ka waa meeqa waa 20,000 okay 20,000 oo lagu daray bracket ifur kadibna maxaan leeyahay dividend closing oo 20,000 ah oo laga jaray openingka oo ah 15,000 is that clear okay dividend paid oo laga jaray 20,000 oo laga jaray aan dhaho 15,000 baa laga rabaa 15,000 ma ahe 150 baan qoray 15,000 baa laga rabay okay maxaa noo soo baxay marka dividend for the year inay tahay meeqa dividend for the year waa meeqa waa 25 haddii aan ku laabano mucaadaladeyni closingkii waan haynay dividendtigii naga maqnaana waan soo saarnay idan profit for the year meequu ii noqonayaa marka profit for the year wuxuu noqonayaa closingka oo ah 14 oo lagu daray openingkii oo laga jaray aan dhaho oo laga jaray okay mar labaad yisaawi aan dhaho closingka oo laga jaray openingka away openingkii tabcan intaana lagu siiyey okay reserve-ka ayaan ka hadlaynaa okay closingka oo laga jaray openingkii oo lagu daray mucaadaladii baan raacayaaye dividend for the year-kii aan soo saarnay idan maxaa ku soo baxayo 22,000 su'aasha taagan waxa weeyaan anima waxaa li weydiiyey profit ma li weydiiyey mise waxaa li weydiiyey profit before income tax profitka shirkadda inta aynan canshuurta bixinin
haddana waxaa noo soo baxay waxa weeyaan profit after tax wey waxa kuu soo baxay canshuurta marka ay bixisay kadib oo say ku garatay macalin li'anno waa nambarkii ugu dambeeyey waxaan kala soo saarnay closinadii ugu dambeeyey ayaan soo saarnay waxaan isticmaalayna waa closingkii balansiyadii ugu dambeeyey weeye idan hadda waxaan u baahanay marka in aan soo saarno kharashaadkii canshuuraha tax for the year waa inaan soo saarno tax for the year okay step saddexaad layerkii saddexaadaan hadda u gudubnay layerkii saddexaadaan u gudubnay li'anno su'aasha ayaa ah profit before income tax idan profit before income tax sifaan u helo waxaan u baahanahay in aan profitka ii soo baxay aan ku daro wixii kharashaad ee canshuurta aan bixiyey kadibna waxaa ii soo baxaya profit before income tax idan tax for the year maxaan ku soo saarayaa waxaan ku soo saarayaa tax paid oo lagu daray kadibna waxaad ii soo qaadaa closingka waxaad ka jartaa openingka qaybta calaaqada la leh taxiga idan markaan hadda fiirino dib aan ugu laabanno okay tax paid waa meeqa waxaana la siiyey in ay shirkadda canshuur ahaan u bixisay mucaadalooyinkan mafruud inaad xifdisan tahay inay shirkadda bixisay meeqay bixisay 22,000 okay ayay bixisay canshuurta qaybta canshuurta calaaqada leh tax liability waa kana closingkii wuxuu ahaa 18,000 openingkiina waa 20,000 haddaba maxaan leeyahay canshuurta sanadka sifaan u soo saaro waxaan leenahay tax paid oo ah 22,000 oo lagu daray kadibna bracket ifur closing waa meeqa waa 18,000 oo laga jaray openingka waa meeqa waa 20,000 maxaan rabaa inaan soo saaro tax for the year waa meeqa waa qaybtani weeye 20,000 idan profit before tax oo ah su'aasha la i weydiinayay waxa ay noqonaysaa profit after tax oo midkaan soo saarnay oo lagu daray taxigii shirkadda ay bixisay jawaabta saxda ahi profitka shirkadda ay sanadkani ay bixisay waa 40 yani faa'iidada shirkadda ka hor canshuurta wuxuu ahaa 42,000 ayuu ahaa I hope inaan isla fahanay ayaan rajaynayaa dabcan qaabkan aan uga shaqeeyay ayaad uga shaqayn kartaa ama waxaad raaci kartaa qaabka ACCA uu sharaxayso I hope ina su'aasha aad ila fahantay ayaan rajaynayaa